صدوا هذا مالته وأنا كقابل مالتين عبالي السلام يا صدوا هذا أنا كلي ما أراني ضد بدن عيد ولا أحسن إنما ده هاي رنتي وايو وحاجرتا كمانكم عرورة وأن فرح سنين وصوماليات صوينا ده عيد ولا أحسن وإحنا مالنا إني نيجا منين أنا وصلي لا تهاوي maalintii waxa la dhigi karaa dadku wada farxayaan waxa weeye waa maalintii caruurta darbijiifka ay Soomaaliyeed ee dawladda helaan waa maalintii kuwaas ciidaan maalintaas waxa fiican inaan isdhaahno isku hambalyeeyno dhahno maanta waa maalin farxadeed laakiin inta caruurta Soomaaliyeed oo darbijiifka oo hooyay aaba haysan oo banaanku dhaxanta ku dishay oo wax hooy aan haysan qoraxda meel ay ka galaan iyo meel ay ka harsadaan meel ay roobka ka galaan oo qoraxda ka harsadaan aan haysan waxay cunaan iyo waxay xirtaan ba aan haysan kaba aan lahayn ee koolo dhuuqa loo bixiyay maalinta ilmaha meel loo helo maalintaas waxaan idin dhihi doonaa ciid wanaagsan maalinta hooyada Soomaaliyeed ku xisaab maalinta hooyada Soomaaliyeed maanta hooyada Soomaaliyeed waxay ku xisaabtamaysaa inay dhasho 10 caruur ah oo ay 5 laga yaabo inay u badbaado 5 kalena ay geeru qorsheyso maalintay laba dhasho ay og tahay labada inay badbaadayaan oo dhakhtar la'aan ay ku dhici doonin cunto la'aan ay ku dhici doonin gaajo ay heli doonin colaadna ay ka baqayn maalintaas baan waxaan isleeyahay ciid wanaagsan maalinta ka wax dila oo wax dulmiya iyo kan la dilo ay cadaalad helaan oo lawyer u wada hadla aan haysano oo kan dambiilaha maxkamadda la keeno kan dambiga laga galayna maxkamad loo doodayo oo labaduba xaquuq ay leeyihiin maalintaas waxaan idin leeyahay ciid wanaagsan maalinta kufsiga maanta waxa loo yaqaanaa sino uu kufsi noqdo oo sharci loo sameeyo maalinta sharci loo sameeyo oo la dhaho sino ma ahan ee kufsi weeye oo inan yar baa lagu xadgudbay waa dambiila wiilka Soomaaliyeed oo kufsaday aabihii kufsaday qabiilka oo cadaalad la helo maalintaas waxaan idin dhihi doonaa ciid wanaagsan maalinta caasho kale caasho oo la kufsaday oo DNA laga qaaday oo ragay u doodayaan in DNA-gu gaala leedahay oo qarnigii 7 iyo 1 xukunkii la qaaday lagu dhaqmo maalinta taa laga gudbo ayaa waxaan idin dhihi doonaa ciid wanaagsan maalinta ummadda Soomaaliyeed tahriibka iska dayso oo ay qaxa iyo rafaadka ay ka baxaan oo magafuhu uu haysto wiilasha Soomaaliyeed oo hooyada Soomaaliyeed ay ooyeyso oo lacag ay tugsanayso oo ay raadinayso in ilmaheedii iyo gabdhaheedii laga soo daayo magafaha oo wadanka maxay uga soo cararayaan colaad waxay uga soo cararayaan gaajo waxay uga soo cararayaan cadaalad darro maalinta taa la waayo oo wiilka Soomaaliyeed iyo gabadha Soomaaliyeed ayagoo wadankoodii jooga ay shaqaysanayaan oo aaminsan yihiin inay ku noolaan karaan
maalintaas baan anigu waxaan idin leeyahay ciid wanaagsan haddii aan intaa noolaado. maalinta hooyada yaayada gadaysa oo hilibka gadaysa oo meel harsatay weyday canshuurta laga qaado dhakhtar loogu geeyo ilmaheeda iskuul ay ku helaan wadooyinka lagu dhiso oona nin uuna jeebka ku shuban maalintaas waxaad idin dhihi doonaa ciid wanaagsan. maalinta wadaadka tuuga ah oo haweenka intuu cadaabta ku baqsiiyo lacagta ka qaada oo masaajid ku qarwaya hadduu hurdo iyo hadduu taagan yahay uu ku fakaro in isbitaal la helo uu ku fakaro in ummadda loo helo biyo nadiif ah uu ku fakaro in la kala saaro dowladda iyo wadaadka oo maalintaas way maalintaan idin dhahayo ciid wanaagsan. maalinta hooyada la kufsado ama wiil qiyaamo oo la dhaho wacal bay dhashay cunugaa loo helo aabe oo dhiig laga qaado oo la dhaho waa ina hebel adaa dhalay kori xaq buu kugu leeyahay oo cadaaladu ay ka sarreyso awooddu cadaaladu ka sarreyso waa maalintaa idin dhihi doona ciid wanaagsan. maalinta gabadhu iskeeda hagoogta u xirato tan kalena ay iska dayso oo gabdhuhu waxay rabaan ay sameeyaan maalintaas baan waxaad dhihi doonaa ciid wanaagsan. maalinta aabbaha Soomaaliyeed waa aaminsan yahay hooyo xaaskaaga waad la siman tahay. wiilka Soomaaliyeed uu aamino hooyadaa kama sarreysid. madaxda waddankanu ay aaminto gabdhuhu iyo raggu waa isku mid. wadaadaduna ayna dhihin annagu dhiigeennu waa xaaraan oo ummadda kale ayna laynta ka daayaan maalintaas baan waxaad dhihi doonaa ciid wanaagsan. waxaynu sugaya waddo dheer waxaa shiko ku jirin waxay dadku u soo qaxayaan inay helaan cadaalad. maalintii ummaddii la soo dhaweeyey Soomaaliyeed ee qurbaha timid dadkii soo dhaweeyey ay u arkaan inay bilaadan yihiin oo ayna ka caqli badnayn oo ayna ka diin fiicnayn oo dadkii soo dhaweeyey ayna dheheen ilaahay baa noo qasbay oo waa gaalo oo ilaahay baa noo qasbo caqli ma lahan oo ilaahay uu cadaabi doonaa. maalintay ummadda Soomaaliyeed taa ka koraan oo ay aaminaan waxaa lagu soo dhaweeyey bilaadantinimo adiguna bilaadantinimo wax ku caawi maalintaasba waxay noo bannaantahay inaan ciid wanaagsan idin dhaho. maalinta shiiqa Soomaaliyeed uu iska daayo intuu masaajidka ka istaago inuu dhaho gaalada laaya wixii ka diin duwan laaya dadka necbaada ree hebel saan dhaha maalintaas bay waxay noo bannaantahay inaan dhahno ciid wanaagsan. waa inuu wadaadka Soomaaliyeed maalmaha ka mida u dhahaa ummaddu ilaahay baa abuurtay ummadda aan ilaahay u dayno dadku inay noolaadaan bay xaq u leeyihiin. gaal islaan yuhuud hindi qof kasta xaq wuxuu leeyahay inuu noolaado. maalinta qofka Soomaaliga uu taa fahmo waa maalinta inaan idin dhaho ciid wanaagsan. haddaan intaa uga gudbo waxaan idina ma idin dhahaya ciid wanaagsan mana mudnidin anigu sidaas ila tahay. maalinta wiilka Soomaaliyeed iyo gabadha Soomaaliyeed ee dowladna haysan waaridna haysan wariyaashii dhintay oo dalka u shaqaynayay askartii dhimatay caruurtoodii aan la dheheen waa ilmihii agoonta ahaa oo wax mushaar aan la siinay inaa isdhahna ciid wanaagsan ma mudna. maalinta la helo qofkii dhinta oo dowladdu u shaqaynayay in caruurtiisa ay damaanad qaado dowladdu waa maalinta inaa isdhahno ciid wanaagsan. maalinta qofkeena dahabka ahaa oo qaaliga ahaa oo dadka aan ugu jeclayn uu intuu geeriyoodo aan xasuusano maalintuu dhintay sanadkeedii kale aan dhahno maantoo kale waxay noo ahayd maalin madow maantoo kale waxaa inaga baxay hebel maantoo kale waxaa inaga dhintay heblaayo maantoo kale waxaa inoo madoobaaday dhulkii iftiin baan weynay oo qofka muwaadinka uu noqdo qof muwaadin ah oo loo naxo maalintaas waxaan noqonaynaa dad isdhaha ciid wanaagsan. laakiin maanta markaan dhahno in la xasuusto ma ahan dadkii dhintay annagu muslim baan nahay oo ma ahan inaan isku tacsiyeyno in maalin xasuusa loo sameeyo
gaaladaa samaysa wax walboo fiican gaaladaa yeesha waxaan nahay cawaan ma dhaano xayawaanka duurka jooga waxba ma dhaano qofka naxaya baa qofkiisii ka dhintay xasuusta anigu maanta dadkan dadka ugu jeclaa ma iloobi karo dadka ugu fiicnaa ma iloobi karo ardadii shaam oo ku dhimatay ma iloobi karo maalin madooba ii taa maalintii ku aadan tahay soobad ku dhintay ma iloobi karo maalin madooba ii tahay waxaan waaye dhalinyaro waxaan waaye dadkii wax bartay waxaan waaye walaalahay waxaan waaye wiilashaydii waxaan waaye gabdhahaydii xaq baan u leeyahay maalintaa bannaanka intaan istaagay inaan ooyo xaq baan u leeyahay inaan maalintaa isdhahno dadkaasaa naga dhintay mar dambe ayay dhimanin dadkaasoo kale ayay dhiman waa inaan dhahno laakiin intaan iloobayno dadkii dhintay imise kun oo qof baa addoonyo ku dhintay maanta yaa xasuusta cidna sawiro lagama hayo qoraal lagama samayn meel uu ku dambeeyana lama garanayo imise qof baa magafi uu haystaa wax og ma lahan qofka Soomaaliyeed waa xaanshi biday weeye qofka Soomaaliyeed waxa la xasuusan yahay anigaan maanta hadlaya haddaan dhinto waxaan ogahay inaynan xasuusaneen wiilka bacdi inaad iloobaysaan waayo qiimayn kuguma fadhiyo waxa isaas idin yeelaya maaha inaad duqum inaad adiga necabtihiin laakiin aqligii baa si kale inka noqday waxa la idin yiraahdo xasuusanina kaaha dadka dhin baa dhimanaya aaqiray u socdaan inaan is xasuusano xaq baan u leenahay maalintan qofku qiimo noo yeesho oo uu noqon qofku inuu xaanshi yahay maalintaas weeye maalinta guush waa maalintaan guulaysan doono haddaa intaa uga gudbo arrintii aan dhahayay oo ciidda ku saabsaneed waxaa u galayaa haweenka Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed dhammaantood waxa haysta dhib si gaar ah waxay dhibtu u haysataa caruurta iyo haweenka dhalinyarada iyo haweenka waayo wadan walba oo burbura fiiriya oo dhibaato ku dhacdo dadkaasay dhibaatadu saamaysaa waayo hooyadu ilmay haysataa ilmihii bay la joogtaa soo ayada iyo ilmaha haddii dowlad la'aan ku dhacdo dhibaato ku dhacdo way baaba'aan ummadda Soomaaliyeed maxaa ku dhacay marka dhibaato weyn baa ku dhacda rag iyo dumarba maanta marka fiiriya hooyooyinkiis maanta waxay maraysaa in abwaan dhan oo Soomaaliyeed uu dhaho dhiiga caadada kama hadli kartaan haddaad ka hadashaan waa dhaqan gaalo haddaad sheegtaan waa dhaqan gaalo abwaan shaacir wuxuu is ilowsan yahay inuu asaguba yahay dhiig isku tegay oo dhiig caado ah anagu haddaan ummadnahay Soomaaliyeed iskuulaadka waxaa laga dhigay taabuu in laga hadlo dhiiga haweenka waxaa laga dhigay in la arko ceeb madii kale ninka Soomaaliyeed mar allaale markii naag la sheego diin baa ku soo degata dhub diin baa samada ugu soo deganaysa waxaan moodaa nabi inuu dhagto wax uga sheego markaas wuxuu soo galay asagoo afka holac uu ka socdo warheede diintan adinku in isku dhaqaynin oo aad isku baabi'iseen maxaad anaga rabtaa inaad noogu aamusisaan maxaad rabtaa anaga inaad xaqeena ugu diidsiisaan dhiigu wuxuu mudan yahay in laga hadlo abwaanka dhiig kuma dhaco laakiin hooyadiis baa dhiig ku dhacay walaashiis buu ku dhacay naag hadduu qabo dhiig ku dhacaya gabadhiisu ku dhacaya waxay xaq u leeyihiin gabdhuhu inay ka hadlaan oo la baro dhiiga caadada ayadoo yar in la dhaho gabadha dhiig baa ku dhaca hadduu dhiigaas kugu dhaco waxaasaad xiranaysaa saasaa samaynaysaa laakiin maanta inuu intuu qayliyo dhaho waan dacweeye haweenkii waxay ku tusaysaa meesha aan marayno horumar la'aanta meeshii la rabay abwaanadu iyo dadkan isdheheen caqli bay leeyihiin inay dadka aan soo sheegay maantay oo fiiri caruurta darbijiifka ahaa kuwa shaqalaanta la cararaya kuwa dhibaatada haysata kuwa qaraxa ku baaba'aya qabiilada islayna inay ka hadlaan buu wuxuu ku mashquulsan yahay siilka dumarka adeerow siilkayga annagaa xaq u leh inaan ka hadalno dhiigga nagu dhaca annagaa og hooyooyinkaa la rabaa inay u sheegaan gabdhaha macallimiinta la rabaa inay u sheegaan aabbayaasha waxaa la rabaa inay u sheegaan oo dhiig baa kugu dhici doona da'da intaa markaa gaartid hadduu kugu dhaco aabe noo sheeg hooyo noo sheeg ma garanaysaa saas samee laakiin haddaad ka dhigtid ceeb waxaan laga hadlin
haddaad ka dhigtid wax aan la soo qaadin oo diintuba ayna qabin dhaqankuna qabin warilma adeerayaalow soomaali raggow soomaaliyeed walaalayaal hayna waalanina waxaan aad uga xumahay in hargeysa arrintaa ka dhacdo gabdhaha hargeysa jooga mise burcay ahayd magaalada iisoo qora qofka xasuusta abwaan shaacir oo ka hadlayay gabdhaha jooga howl fiican bay qabteen waxay mudan yihiin in la amaano waayo gabdhihii bay wax u sheegayaan marxalado kala duwan baa ku dhacda dumarka waxay u baahan yihiin waxay qaadanayaan in la siiyo ma garanaysaa waxay isticmaalayaan si looga hadlo xilligay rabaa inay